بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan halkan waa marqaati TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqeynta xogta caalamka waa jimcaha taariikhdu waxay ku beegantahay 25 bisha Oktoobar sanadka 2024 daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku falanqeyn doonaa wararkii ugu dambeeyay ciidamada gumeystaha oo gudaha u galay mid kamid ah isbitaalada ugu waaweyn ee Khan Yunis bukaanada oo lagu qasbayo in si awood ah looga saaro isbitaalka iyo wararkii ugu dambeeyay waxyeelada loo geystay isbitaalka barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa dhanka Lubnaan waxa ka soconaya dagaal iyo duqeymo culus dagaal falka-fool waxa lagu dilay askar kamid ah gumeystaha iyaguna dhul badan ayay burburiyeen oo duqeymo ay ku beegsadeen xarumo ay sheegeen in ururka Hizbullah uu leeyahay sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan ku eegi doonaa Ruushka oo lagu eedeynayo in uu Xuutiyiinta si weyn uga caawiyay weerarada loo geysto maraakiibta reer galbeedka ee ku sugan badda cas soo dhawaada daawada fadlan hadaan nagu cusubtaan nagu soo biir muuqaalka share garay aragtada qaybta hoose commentiga ku reeb mahadsanid barnaamijka ayaynu guda galeynaa maanta ciidamada gumeystaha ayaa weerar waxay ku qaadeen isbitaalka lagu magacaabo Kamal Adwan ee waqooyiga Mareyka Gaza waxayna ugu baaqeen bukaanada in ay isugu soo ururaan barxad weyn oo ku taala isbitaalka halka 28 Falastiiniyiin ay ku dhinteen duqeyn ay Israa'iil la beegsateen guryo ku yaala deegaan lagu magacaabo Al-Manara ee koonfurta magaalada Khan Yunis waa berigii hore ee maanta afhayeenka ciidamada madaniga ee Gaza ayaa u sheegay Al Jazeera in ka badan 150 bukaan iyo waliba sidoo kale shaqaale ay ku xayran yihiin isbitaalka Kamal Adwan isagoo xusay inay jiraan dhaawacyo soo gaaray shaqaalaha caafimaadka iyo sidoo kale burbur la soo gaarsiiyay qayb ka mid ah isbitaalka caruur ayaa sidoo kale lagu dilay duqeynta ay Israa'iil ku garaacday xarunta ugu weyn ee oksijiinta isbitaalka geesta kale wariyaha Al Jazeera ayaa soo sheegay in ciidamada gumeysiga ay weerar cirka ah iyo madaafiicba ku qaadeen deegaanka Al-Manara ee koonfurta Khan Yunis waxaana la bartilmaameedsaday xaafado ay degan yihiin dad shacab waxaana lagu dilay 28 qof geesta kale wariyaasha ayaa tilmaamaya in laba qof oo Falastiini ah ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn lagu garaacay laba guri oo ku yaala deegaanka Al-Qizan Al-Najjar ee isla magaaladan sidoo kalena 3 Falastiiniin ayaa ku dhintay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn madaafiicda Israa'iil ah oo lagu garaacay deegaanka dhanka bari kaga yaala Khan Yunis ee lagu magacaabo Makan geesta kale difaaca madaniga ee Gaza ayaa horay u sheegay ama horaantii shalayta u sheegay in ciidamada gumeysiga ay xasuuq weyn u geysteen muwaadiniin iyaga oo qarxiyay 12 guri oo ku yaala xerada Jabaliya ee waqooyiga Mareyka Gaza 10,000 oo kamid ah dadka deegaanka ayaa sidoo kale la go'doomiyay kadib markii ciidamada gumeysiga la sheegay inay isku gadaameen xaafadda Beetla ee xerada Jabaliya sida laga soo xigtay ila caafimaadka tirada dadka dhintay ayaa gaaray 820 ruux taasoo ka dhalatay howlgallada military ee Israa'iil ay ka wadaan Jabaliya iyo waqooyiga Mareyka Gaza oo socda 20 maalin ama 20 cisho geesta kalena wakaalada wararka Anadolu ayaa sheegtay in koox Yuhuuda oo xag jira ay weerar ku qaadeen aaga xayndaabka amaanka ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Mareyka Gaza iyagoo isku dayay in ay dadka shacabka ah dhibaato gaarsiiyaan geesta kalena ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in laga dilay 2 sargaal iyo 3 askari dagaal ka dhacay koonfurta Lubnaan taasoo tirada dhimashada 24 saac ka dhigaysa 10 halka dhinaca koonfureed ee Beirutna ay weerar badan ka geysteen Israa'iil tan iyo fiidkii shalay waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jirta dhimasho dhaawac ciidamada Israa'iil ayaa duqeymahooda diiradda ku saaraya deegaanada Hareed iyo sidoo kale Burj al-Barjana iyo sidoo kale Hadath waxaana sidoo kale duqeymo kale oo Israa'iil ay la beegsadeen deegaano ku yaala koonfurta Lubnaan ee Bekaa dhanka bari ah halkaas oo dhimasho dhaawac ay ka dhalatay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 24 saac la soo dhaafay in ciidankooda cirka ay duqeeyeen 200 oo bartilmaameed oo ku yaala guud ahaan dalka Lubnaan waxaana ciidamada qaybta 146aad ay burburiyeen ilaa 50 xarumood oo Hizbullah ay ku lahaayeen tuulooyin ku yaala koonfurta Lubnaan sida lagu sheegay war ka soo baxay ciidamada Israa'iil sidoo kale waxaa warkan shaaca looga qaaday dilka Abbas Adnan Muslim oo ahaa taliyaha ciidamada Radwan ee Hizbullah oo lagu dilay magaalada Aytarun ee koonfurta dalka Lubnaan kadib weerar dhanka cirka ah oo ay fuliyeen ciidamada qaybta 19aad ee Jaliil isagoo xusay in Adnan Muslim uu mas'uul ka ahaa agaasinka toogashada howlgalla iyo gantaalo ku wajahnaa ciidamada Israa'iil iyo sidoo kale magaalooyin ku yaala waqooyiga Israa'iil geesta kale ururka Hizbullah ayaa duqeymo ka geystay dhowr magaalo oo ku yaala waqooyiga Israa'iil iyadoo ciidamada Israa'iil ay ku dhawaaqeen in la qabtay
gantaal laga soo riday Lubnaan oo kusii jeeday koonfurta magaalada Xayfa subaxnimadii maanta oo Jimco ah, waxaana dhawaqa seeriga digniinta laga maqlay magaalada lagu magacaabo Xadeera, Kaysariya iyo sidoo kale dhul ballaaran oo koonfurta Xayfa ah. ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen sidoo kale in seeriga laga dhawaajiyay Almanar iyo Margaret oo ku yaala Jaliil si ay uga digaan gantaalada. seeriga ayaa sidoo kale laga maqlay Misgaf Am oo ku taal waqooyiga dhanka Jaliil maanta oo Jimco ah, gaar ahaan saakadii hore. Xisbullah ayaa ku dhawaaqay duqeynta lagu garaacay magaalooyinka Safed iyo sidoo kale Nahariya deegaanada Kiryat Shimon iyo Karmel iyo saldhigga Nashrim in waxyeello xoogan ay ugu geysteen ciidamada gumeystaha. sidoo kale xisbiga ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen isu imaatin ay ciidamada Israa'iil ku lahaayeen Misgaf, Almanar iyo Almalakiya. sidoo kalena waxa ay weerar ku qaadeen xerada Ramot, halkaas oo ay sheegeen inay ku dileen qaar ka mid ah ciidamada gumeystaha. warbaahinta Israa'iil ayaa xaqiijiyay in tan iyo shalay in ka badan 200 oo gantaal oo laga soo riday Lubnaan ay dhanka Israa'iil ay soo gaareen, kuwaas oo ay sheegeen qaarkood in la qabtay, qaarkoodna ay ku dhaceen goobo bartilmaameed ahaa oo markii horeba loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Ruushka uu xog siiyay kooxda Ansarullah ee Xuutiyiinta si ay uga caawiyaan inay weeraraan maraakiibta reer galbeedka ee ku sugan badda Cas. waxaana wargeyska intaasi ku daray in Xuutiyiintu ay awood u yeesheen inay adeegsadaan xogta dayax-gacmeedka Ruushka si ay ula beegsadaan maraakiibta wada gantaalada balastiga iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, sida ay sheegtay laba sargaal oo ka tirsan difaaca Yurub iyo qof xog ogaal u ah arrimahan oo magaciisa la qariyay. waxaana intaasi lagu daray in xogta ay Xuutiyiintu u gudbiyeen xubno ka tirsan ilaalada kacaanka. wargeyska waxa uu sheegay in tan iyo markii ay bilowdeen weerarada Xuutiyiinta, inta badan maraakiibta kasoo gudba badda Cas ay bilaabeen in ay damiyaan calaamadaha raadiyaha markii ay u soo dhawaadaan dalka Yemen, taasoo suuragal ka dhigaysa in kaliya lagu soo raadiyo dhanka dayax-gacmeedka oo si kale aan lagu ogaan karin. dowladda Ruushka iyo Xuutiyiinta midkoodna weli kama aanu hadlin waxa uu wargeyskan qoray. tan iyo dhammaadkii sanadkii hore Xuutiyiintu waxa ay bartilmaameedsanayeen maraakiibta xamuulka qaada ee Israa'iil ama kuwa kale ee lala xiriirinayo ee ku sugan badda Cas, badda Carabta iyo badweynta Hindiya, iyaga oo taageero u muujinaya reer Gaza. tan iyo 7 Oktoobar la kulmayay gardarada Israa'iil sanadkii 2023, taasoo sababtay 10,000 oo qof in ay halkaasi ku dhintaan, kuwo kalena ay ku dhaawacmaan. markii ay soo farageliyeen arrimahan Washington iyo London, xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay bishii Janaayo ee lasoo dhaafay, sababtoo diyaaradaha labadan dowladood ayaa bartilmaameedsaday Xuutiyiinta. kooxda Xuutiyiinta iyaguna markaasi kadib waxay ku dhawaaqeen in wixii xilliga ka dambeeyay dhammaan maraakiibta Mareykanka iyo Ingiriiska loo tixgelin doono bartilmaameedyada military. daawad aragtada qaybta commentiga noogu reeb. mahadsanid. barnaamij falanqeynta ka daawanaysan Marqaati TV wanaaganta barnaamijkan xigantan ku kulmayna. nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.